caalamka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadaheynaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan sanad kadib amarkii madaxweyne Trump ee hakinta qaxootiga. waa sidee xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadkii uu amarkaasi saameeyey. markii diyaaradda intaan xirnay aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacadana maraysa 7 saac 9 saac airport naloo soo qaadi rabo baadana aniga ii yeeray waxaa la yiri adiga qaadimo ma baxaysid email baa soo dhacay sawirka Mareykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixdii 10kii shalay buuxsantay qoladaas hadda kugu dhagtay adiga safarkaaga uu baaqanaya. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin daamooge baadil aan run sheegaynin iyo badowdu moodaaye buruudka iyo awtaadu waa badatamayaan. waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Galmudug, xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhimatay 2 weerar oo loo adeegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo talaadadii shalay ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. gaariga koowaad ayaa ku qarxay banaanka masaajid ku yaala xaafadda Al-Salmani. qarax labaad oo lala eegtay boolis iyo dad gurmad ah ayaa dhacay 30 daqiiqo kadib qaraxii hore. howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa cambaareeyay weerarkaasi. qaramada midoobay waxay carabka ku adkaysay in weerar loo geysto rayid uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bani'aadanimada. ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas'uuliyadda weerarkan. xaaladda Liibiya ayaa qasantan iyo markii awoodda xoog loogaga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumay ee Muammar al-Qaddafi kaasoo la dilay sanadkii 2011. ugu yaraan 1 qof ayaa dhintay halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan maanta kadib markii Maleeshiya hubaysan ay weerareen xafiiska hay'adda caalamiga ee Save the Children. Ayatollah Qoyani oo afhayeenka maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in koox rag oo hubaysan ay qabsadeen dhismaha hay'adda kadib markii qof soo miidaamiyay oo gaari wataahay uu isku qarxiyay albaabka dhismaha xarunta Save the Children. ciidamada ammaanka ayaa iska hor imaad uu muddo dhex marayay maleeshiyaadkan kor intii uusan soo gabagaboobin weerarkaasi markaasoo ciidamada amnigu isku gadaameen xaruntan. qof goobjooga ah oo lagu magacaabo Sayid Axmed ayaa sheegay inuu arkay gaari Toyota Corolla ah oo u sii socota dhanka albaabka xarunta Save the Children wax yar kadibna uu arkay gaariga oo sii qarxaya. 3 ilaa 4 kamid ah kooxaha weerarka soo qaaday oo xiran dharka ciidamada ammaanka ayaana gudaha u sii gala dhismaha. Daalibaanka Afghanistan ayaa iska fogeeyay mas'uuliyadda weerarkaasi. in ka badan 50,000 oo ruux ayaa laga daadgureeyay deegaanada u dhow buurta Mayan ee dalka Philippines halkaas oo talaadadii uu ka qarxay volcano. maxadka darsa volcanaha ee dalka Philippines ayaa sheegay in awoodda volcanaha buurta Mayan uu dibadda u soo saaray dhagxaan waaweyn oo dhimbilo ah iyo qaac ilaa iyo 600 oo mitir u gaaray hawada sare. maxadkan ayaa sare u qaaday feejignaanta halista ka dhalan karta volcanaha. wuxuu ku taliyay in khatartiisa ay gaari karto dhul gaaraya ilaa iyo 8 kiiloomitir sidaas daraadeedna ay tahay in dadka laga daadgureeyo. buurta Mayan ayaa 300 oo kiiloomitir u jirta magaalada Manila ee caasimadda dalka Philippines. waxay ka mid tahay 22 buurood oo caan ku ah volcanaha dalkaasi. senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gadisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee Koongareeska soo saari doona kadib markii maalin uun ay ka soo wareegatay markii la fasaxay hawsha shaqada Mareykanka. senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo inay soo kala adkeyn doonaan ammaanka xadka. hogaamiyaha aqlabiyadda xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa u sheegay wariyaasha inay bilaabi doonaan wadahadalo xasaasi ah. Isniintii ayuu McConnell sheegay in sanadka uu qorsheenayo in ay ka hadlaan sharci diiradda saaraya xaaladda carruurta soo galootiga ah iyagoo yaryar dalkan Mareykanka la keenay kuwaasoo aan sharciyo haysan. labada xisbi ee ugu weyn Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan sidii laga yeelayo ama waxa laga sameynayo ku dhawaad 700,000 oo ruux kuwaasoo si sharci darro ah Mareykanka lagu soo geliyay iyagoo carruur ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xalay soo gabagabeeyay safar 2 toddobaad ah oo uu ku tagay gobolada waqooyi bari ee bartamaha Soomaaliya ayaa shalay lugtii ugu dambeysay safarkiisa waxa uu ku tagay magaalada Hobyo, halkaas oo mashaariicdii uu dhagax dhigay ay kamid ahayd dekedda magaalada Hobyo. dadweynaha Hobyo ayaa sheegay in dhismaha iyo dib u furista degmada ay muhiim u tahay wax weyn ay ka bedelayso nolosha dadka. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Hobyo. inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu shalay si rasmi ah u dhagax dhigay deked ay yeelanaysa degmada Hobyo ee gobolka Mudug, haddana qaar ka mid ah dadka ku nool Hobyo ayaa aad u soo dhaweeyay hirgelinta dekedaasi. anoo ehtikiisiban aad iyo aad ugu faraxsanahay dekeda dhagaxdhigta. qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in dhismaha dekeda ay tahay mid hididiilo gelinaysa shacabka Galmudug, sida uu sheegay Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ka mid ah dadka aadka ugu qanacsan dhismaha dekeda Hobyo. wallahi aad baan ugu faraxsanahay, waxayna tusinaysaa waqti badan wax aan sugaynay inay noo hirgaleen maantay. aad iyo aad baan arrintaa ugu faraxsanahay. rajada dadka ka waran ee gobolada Galmudug ku dhaqan, wallahi aad iyo aad qiiro aan la malayn karin baa ka muuqatay oo ay u baahi qabaan dekeda Hobyo iyo wadada Gaalkacyo to Hobyo. in badan bay dadkani dekeda raadinayeen, aad iyo aad bayna ugu baahi qabaan. maantana waxaan dareemaynaa mid rajo weyn oo dadku in badan ay raadinayeen inay noo muuqanayso. aad baan ugu faraxsanahay. Layla Xuseen waa haweenay muddo ku noolay degmada Hobyo, waxa ay ka waramaysaa dareenkeeda. maasha Allah kaana aniga kuleyba waan ku faraxsanahay maadaama shalay dekeda naloo dhagax dhigay. boqolkiiba 90 lama soo koobi karo farxadeyda aniga iyo dad badan oo ku nool degmada Hobyo. kuleyba waxay noo tahan ku iro horumar inaan hiigsanayno boqolkiiba 90 wadamada horay maray inaan gaari doono umaleynaya sanadyada soo socdo. muddo badan ayaa lagu taamayay in dekeda Hobyo la dhagax dhigo, markaana waa markii ugu fiicneed la dhagax dhigo dekeda Hobyo. madaxweynihii Soomaaliya waftigu uu hogaaminayo uu dhagax dhigay dekeda boqolkiiba 90 lama soo koobi karo farxadeena. hirgelinta dekeda Hobyo waa mid muddo ay ku taamayeen bulshada gobolka, ha yeeshee dhagax dhigii shalay uu sameeyay madaxweyne Farmaajo ayay bulshadu ku laab qaboojisteen. hase ahaatee waxaa dowladda iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug looga fadhiyaa bilowga dhismaha deked ay yeelata degmada Hobyo. degmada Hobyo ee gobolka Mudug inkastoo horay ay uga jirtay deked macmal ah oo mararka qaar ay wax ka soo degaan, haddana dadku waxa ay qabaan in ay helaan deked caalami ah in laga hirgeliyo degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, degmada Hobyo. dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo deegaanada Galmudug safar dhulka ah ku soo maray ay ku guuleysteen inay dib u heshiisiin dhex dhigaan beelo xurgufo ay ka dhaxayso oo ku nool Galmudug. Xaaf oo wareysi gaar ah siiyay VOA-da ayaa sheegay in sidoo kale isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay isla ogolaadeen in degmada Cadaado ay sii ahaato xarunta baarlamaanka Galmudug kadib markii ay sidaas sii codsadeen dadka deegaanka Cadaado. Xaaf ayaa dhinaca kale wareysigan uga hadlay khilaafkii isaga iyo madaxtooyada Soomaaliya ee ka dhashay arrintii muranka qaliijka. Cabdicasiis Xuseen ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay madaxweyne Xaaf wuxuuna ugu horreyn weydiiyay sida safarkii Galmudug uu guud ahaan ugu soo dhamaaday. waa safarka guul buu ugu soo dhamaaday alxamdulillah. 12 bari ayaan Galmudug ku dhex jirnay, magaalada mar kulligood ku wada hoyanay, wada aragnay. aad iyo aad buu u fiicnaa. muhiimadaha ugu weyn waxay ahayd tii oo arrintii ahlu sunnada iyo wixii oo la isku dhex daray oo meeshii caasimadii la tegey iyo dib u heshiisiin. hadafka dhan oo madaxweynaha oo aad iyo aad uga shaqaynayay, aad iyo aad isku taxallujiyey, kulligeena aan ku mashquulsanay, waxay ahayd si dib u heshiisiin loo helo, dadka loo heshiisiiyo. markaa ma kula tahay in dhammaan madaxweynuhu meeluhu marayay dadkiis haystay, hadday noqon lahay dhinaca Xeraale, hadday noqon lahay dhinaca Cadaado, hadday noqon lahay dhinaca Budwaaq iyo Dhuusamareeba, inuu dadkiis ku soo dhaweeyay, isku qalbi furay oo ay halkaasi dib u heshiisiin rasmi ah ka dhacday? wallahi waa dib u heshiisiin rasmi ah runtii way dhacday. Xeraale iyo Cadaado iyada wax saasi ma jirin, waxyaalo iska yaro challenge ahayd, laakiin waana iska dhamaatay. laakiin meesha ugu weyn waxay ahayd Xeraale iyo Budwaaq oo xoogaa ay
nabadgelyadeedu xumayd laakiin hadda ciidan aan geynay una sii badin doono insha allah. waa dadka wax dhex yaaleyna waa isugu yeernay odayaashoodii waa wada aragnay wax badan baa nooga soo kordhay. madaxweynuhu runtii si fiican buu ugu soo qancay, uu soo arkay. marka beelahan wax kala tirsanaya ee madaxweynaha iyo adigubaad la soo kulanteen si loo heshiisiiyo dhinaca dowladda dhexe markaad eegto madaxweynuhu maxay ka codsanayeen? ma madaxweynuhu wuxuu sameynayay ballanqaadiyo in dowladda dhexe ama ay wax siinayso ama lacago ku yaboohayso ama xilal siinayso si heshiisyo ay u qaataan? ma wallaahi waxba wixii developmentii oo qaadiya uu ka hadlaayay oo weliba wuxuu ku shardinayay haddayna nabad keenin oo aan nabad la helin horumarin ma helaysaan. marka wax ballanqaado madaxweynuhu isagu xilal uu soo ballanqaaday ma jiraan beelaha? ما wax xilada iyo waxaas lagama hadlin. waxaa laga hadlayay dib-u-heshiisiin iyo nabadeyn iyo in horumarin iyo development ay helayaan. waa tahay dhinaca Cadaado waxaad sheegtay in iyaduna ay ahayd caqabad idin soo wajahday sidaan la soconno dadka Cadaado degani tan iyo markii aad heshiiska la gashay dhinacan Ahlusunna iyaguna way qawadsanayeen qaabkaad wax u wado xitaa kamay soo qayb galin caleemasaarkiinii Dhuusamareeb. xitaa waxa dhacday in xitaa ay sheegeen in ayna ogoleen inaad Cadaado ku noqotid, laakiin ugu dambeyntii waxa muuqatay in arintaasi heshiis laga gaaray oo madaxweynihii mar kale ku noqday. bal arintaasi in yar noo faahfaahi, maxay ahayd xiisada Cadaado adiga ka soo wajahday sideenad ugu guuleysateen inaad arintaasi xalisaan? wallahi arintaas waxay ahayd dadka iska maradii meeshii la joogay annagii baxyaanada ka guuray dowladii iyo waxuuna loo reebo oo yaana meecdaan la dhigay bay ahayd. ayadiina waa ku guuleysanay oo waxaan hadda aan ballan qaadnay ama aan samayn doonaa meeshaan Dhuusamareeb iyo Cadaado 70 kilomitir isku jiraan oo wax aad isugu dhow. in hadda baarlamaan ku sii yara shaqeeyo, wasaaradaha qaar ku sii yara shaqeeyaan. waxyaalaha horumarna ay maaragtay dalbanayeen waa laga ballan qaaday in la samaynayo. police station iyo xabsiyaal iyo airportka iyo loo hagaajiyo waxaasoo dhan waanu ku qancinay. iyagiina hadda waa wax dhibaato ay kama jiraan. saaka waan soo marnay, gacan furman ugu soo dhaweeyeen. intaasna maaragtay waan ku wada hadalnay, waan samayn doonaa insha allah. marka waxaad imika iclaamiseen adiga iyo madaxweynuhuba in Cadaado ay sii noqoto xarunta baarlamaanka maamulkaaga. marka ma dalab iyaga dhinacooda ka yimid baa mise idinkaa u gartay? maya iyagaa yimid waa in maaragtay wixii wax nooga haraan. marka iyagaa dalbaday infact oo yiri baarlamaanku almeena wax isku xiran isaga ka jiray. bal baarlamaanka ha ku sii shaqeeyo halkan ha ku shaqeeyo. ayadana waanu ka aqbalnay. intee in leeg baad marka ay sii noqonaysaa inay noqoto xarunta baarlamaanka Cadaado? annagu dii ilaa intii suurtagal haddii ay noo habboonaato oo baarlamaanka iyo ay nala aqbalaan annagu waxaa jeclayna weliba joogaan. wasaaradaha qaarkood xataa waa geynaynaa. wax dhibaato ay ma jiraan. taas caqabad dambe insha allah ma noqonayso. marka baarlamaanka Galmudugna waa inay arintan iyaguna dhinacooda ansixiyaan soo maaha in ay Cadaado u aqoonsanaadaan inay noqoto meeshii ay kusii shaqayn lahaayeen? baarlamaanku iyagu way ku khasban yihiin, waana maaragtay waan ku shaqayn doonaan. haddii wax ka soo laabtaana dee waa la arki doonaa. laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa in baarlamaanku noogu sii shaqeeyaan meesha ay loo sii joogaan. waa gartay. ugu dambeyntii adiga iyo dowladda dhexe khilaaf baa dhexdiina ka dhashay oo ku aadanaa mowqifkii aad ka qaadatay arrimaha khaliijka ka taagan. laakiin iminka waxaa muuqata in adigii iyo madaxweyne isla socoteen oo safarka sidaan arkaynayba waqti badan isla qaadateen. haddii aan dib u milicsano mowqif ahaan maxaa iska kaa bedelay arrintii ku saabsanayd muranka ka taagan khaliijka oo adigu Sacuudigaad iyo Imaaraadkaad si toos u raacday? mowqifkaagii ma waxbaa iska bedelay? wallahi aniga khaliijka sidaan u aaday iyo sidii loo fahmay baa kala jaalaha. anigu waxaan u aaday nimanka xoogaa annaga gobolkayga waxba may tarin sanadihii hore. marka gobolada kale wixii ay tareen oo kale na taraan oo maaragtay oo ciidamada iyagoo noola dhisaan xarumo iskuulle iyo waxay dhisaan degmooyinka. shaqo badan bay ka qabtaan, gaadiid bay siiyaan. annagu marka waan qadsanayn. anigu marka meesha waxaan u aaday wax kale ma ahayn. anagu waa qadsanahay dee qaybkaygii dee gobolada kale waxbaa siiseen annagana waxayagana siiya
si kala si kale u tirtay mooyee anigu wax maaragtay oo gaar ah aan ka doonayna ma jirto haddana arrintaas way dhammaatay waana ka heshiinay dowladda dhexe iyo siyaasadeedana anigu kama weyni waa tahay laakiin heshiiska dowladda dhexe aad gaadheen waa meesheeda ee mowqif ahaan waa inagii ku waraysanay idaacaddeedu ku waraysatay sheegtay inaad sacuudiga iyo isbahayskan imaaraadka si toosa u raacday marka mowqifkaasi ma waxbaa iska bedelay arrintaas gebigeedii oo lagtahay in iyadii oo dhan iska shuuqday marka hadda inaan waqti isaga lumino ama sheegna uma baahnin calaa kulli xaal wixii kastoo jirayba waanu ka heshiinay dowladda dhexe waana ka wada soconaynaa imaaraha hadday waxna siinayaan iyo haddii waa warsan karnaa hadday dowladda dhexe noo soo marinayaan waxba kama qabno hadday annagana siiyaan waxba kama qabno iyo ciddii waxna siinaysaba laakiin arrintii iyadoo xoogaa ayaantii falkaa waa joojinay arrintaas way dhammaatay aan ku heshiinay marka mowqifka dowladda dhexe ee ah in ay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka carabta ka taagan ayaad idinkuna mowqifkaasaad dowladda kala mid tihiin warka horta lama raba in wax la kaabiyo maogtahay aniga wariga raadisee